waxaana wanaagsan gebi ahaantiin baddaawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda oo hadaan oo kale ka daawataan janalka Gobson TV. qodobada ugu door karoon aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyey dagaal xooggan oo maanta ka dhacay deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan macawisleyda iyo ciidamada dawladda oo soo bandhigay gawaarida dagaalka oo ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo ciidamadii ugu badnaa ee soo bandhigtay iyagoo ku sii jeeda furimaha dagaalka iyo deegaanada ay beeshaasi degto. ergeyga gaarka ah ee abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo afka furtay banaankana keenay cidda ka dambaysa qaraxyada Muqdisho iyo amni xumada caasimadda ka jirta. taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo arrin lama filaan ah maanta sameeyay ayaad kaga bogan doontaa barnaamij wareedkeena, balse marka hore daawade waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo oo aad sii share garayso lana wadaagto saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. mar waliba waxaan u taaganahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan anagoo ku baahina halkan daqiiqada ka dambaysa. waa maalinimo Khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha 11 ee November sanada 2022. waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. warar dheeraad ah ayaa naga soo gaaraya dagaal u dhaxeeyay ciidamada dib u xoreynta deegaanka ee macawisleyda loo yaqaano iyo ciidamada dawladda oo garab siinaya iyo kooxda Al-Shabaab oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada deegaanka ay weerar ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab oo ku yaala deegaanka Ceel Hareeri ee gobolka Hiiraan. wararka ayaa sheegaya in dagaal culus oo foolka uu ka qarxay halkaasi kaasi oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada deegaanka ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka ee lagu wada dagaalamay kadib markii ay gurmad ka heleen ciidamada militariga ee Soomaaliya. xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana weli dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, iyada oo la soo sheegayo xilligan in ciidamada deegaanka macawisleyda ay gurmadyo kala duwan helayaan oo uga imaanaya deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan sida degmada Jalalaqsi oo ay hoos tagto deegaanka lagu dagaalamaya ee Ceel Hareeri iyo sidoo kale deegaano kale oo gobolka Hiiraan ka mid ah, taasi oo keenaysa in uu dagaalku sii xoogaysto. wixii xoga ku soo kordha dagaaladaasi ka soconaya qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan waxaad ku daawan doontaa barnaamijyadeena iyo sidoo kale wararkaan halkan ku baahayno. dhanka kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa maanta sameeyay arrin lama filaan ah, taasi oo ay dad badani aad ula yaabeen kadib markii uu ka soo muuqday munaasabad ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. munaasabadan oo ay dawladdu kula wareegaysa gargaar ay soo dirtay dawladda Itoobiya ayaa waxaa halkaasi ku sugnaa mas'uuliyiin kala duwan sida duqa magaalada Muqdisho, wasiirka caafimaadka, wasiirka waxbarashada, wasiirka warfaafinta iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo xubno kale. deeq ka timid Itoobiya oo ahayd daawooyin loogu talagalay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii Zoba 2 ayaa sidoo kale oo ay la socdeen dhaqaatiir laga soo diray Addis Ababa. waxaa gargaarkan wasaaradda caafimaadka ku wareejiyay safiirka Itoobiya. wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa u mahadceliyay dawladda Itoobiya sida ay uga soo jawaabtay dalka wasaaraddiisa kadibna ay deeqdan ugu soo dirtay. dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn uga falceliyay in taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu ka soo muuqdo la wareegidda gargaarkii ka yimid Itoobiya.
dad badan ayaa aad uga falceliyey iyaga oo ku tilmaamay in taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad uu gabay shaqadii sirdoonka iyo sidoo kaleeta amnigii magaalada Muqdisho isagoo ku fashilmay haddana uu isku dayayo in uu macaawino iyo sidoo kale gargaarkii loo soo diray dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho in uu isaga la wareego iyada oo si weyn baraha bulshada loogu jaajeexay arrintan ku aadan in gargaarkii qaraxii Zoobo loogu talagalay Itoobiya ka yimid uu markaasi u tagay airportka. dhanka kale tana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gudoomiyey shirka golaha wasiirada oo warbixin looga dhageystay guddiga qaran ee gurmadka qaraxii kilomitir 5 Zoobo ka dhacay Sabtidii. wasaaradaha gaashaandhigga amniga iyo maaliyadda guddiga qaran ee gurmadka qaraxii isgoyska Zoobo ka dhacay 29kii bishii hore ayaa golaha uga warbixiyey halka ay marayaan howlaha gurmadka oo ay wadeen iyagoo tilmaamay in qaar ka mid ah dhaawacyadii darnaa loo qaaday dalka dibaddiisa welina gurmadka uu socdo isla markaana ay dalka soo gaareen dhaqaatiir iyo dawooyin ka yimid dalalka saaxiibada la Soomaaliya. golaha ayaa warbixin la xiriirta howlgallada xoreynta iyo xasilinta dalka ka dhageystay wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo tilmaamay in ay si xawliya u socdaan howlgallada xoreynta iyo xasilinta goobaha ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab. wasaaradda gaashaandhigga ayaa tilmaamtay deegaano muhiim ah oo ay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab in lagala wareegay oo ciidamadu dowladda xilligan ka arriminayaan welina ay socdaan howlgal lagu dabajarayo kooxda Al-Shabaab. wasaaradda maaliyadda ayaana golaha wasiirada u soo bandhigtay warbixin ku saabsan halka ay marayaan howlaha deyn cafinta iyo safarkii wasiirka maaliyadda uu ku tagay dalka Mareykanka uu kula kulmay hay-adda maaliyadda caalamka iyada oo la rajeynayo ilaa iyo dhamaadka sanadka dambe in la soo dhameystiro barnaamijka deyn cafinta. daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamijyadeena. haddii aad nala soo gaartay qaybtan waxaa ka codsanaya inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada.